Dowladda dhexe ee dalka Itoobiya ayaa markii ugu horeysay soo saartay war-saxaafadeed ay uga hadlayso dagaaladii dhowaan dhexmaray Al-Shabaab iyo ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida oo gacan ka helaya militariga federaalka. Warmurtiyeedkan oo ahaa mid la sugayay ayaa lagu sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab la gaarsiiyay khasaare xooggan, waxaana sidoo kale la tabinayaa in ay sii badanayaan tirada xubnaha maleeshiyada Al-Shabaab ee lagu qabanayo gudaha Itoobiya, gaar ahaan gobolka Afdheer. War-saxaafadeedkan ayaa si buuxda ugu saabsanaa dagaaladii is-xigxigay ee ka dhacay magaalooyin u dhow xadka kala qaybaya Itoobiya iyo Soomaaliya, kuwaasi ay ku lug lahaayeen Al-Shabaab iyo ciidamada liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waxyaabaha warbixinta lagu sheegay waxaa ka mid ah in 85 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Feerfeer ee ku taala xadka ay wadaagaan Itoobiya iyo Hiiraan. Dagaalkii ka dhacay gobolka Afdheer oo ilaa haatan lagu soo waramayaa in si goos-goos u socda ayaa isagana lagu dilay maleeshiyada tiradooda gaaraysa 209 xubnood, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda dhexe ee Itoobiya. Ururka Shiine oo qayb ka ah dhaqdhaqaaqyada Oromada ayay dowladda Itoobiya u aqoonsan tahay urur argagixiso. Tan ilaa markii xiisadda bilaabatay waxaa soo baxay warar ku saabsan in maleeshiyada Al-Shabaab xiriir la leeyihiin ururkaasi ayna ku dadaalayeen sidii ay isku gudbi lahaayeen. Waxyaabaha kale ee war-saxaafadeedka lagu sheegay waxaa ka mid ah in Itoobiya ay gacanta ku dhigtay 3 ka mid ah qalabka isgaarsiinta ay Al-Shabaab adeegsanayeen, kuwaasi oo la sheegay in tiradooda guud ay gaarayso 4. Mas'uuliyiinta dowladda Itoobiya warkaani kumaysan qeexin qorshahooda xiga ee ku saabsan dagaalka iyo tallaabada xigta ee ay qaadi doonaan, waxaana walaac ka taagan yahay amni darrada ka soo cusboonaysay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Hase yeeshee, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cumar oo dhowaan gaaray furiinta hore ee dagaalka ayaa sheegay in la abuuri doono aag ka caagan maleeshiyada Al-Shabaab oo ka mid ah gudaha Soomaaliya. Wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya goobihii lagu dagaalamay ayaa la sheegayaa in weli ay socdaan isku dhacyo goos-goos ah. Dadka sugan meelaha ka tirsan gobolka Afdheer, gaar ahaan degmada Qoxle iyo degmada Cadaadle ee gobolka Shabeelle, ayaa warbaahinta waxay u sheegeen in deegaanada miyiga ay ka dhacayaan dagaalo kooban oo u dhexeeya ciidanka amniga deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ayaa waxay sheegeen in ilaa iyo shalay oo Arbaca ay gacanta ku dhigeen 9 qof oo la sheegay in ay ka tirsan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab, inkastoo aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya arrintaasi.